siday adduunka TV u sheegeen ila sirdoon shirka madaxda hay'adaha sirdoonka ee dalalka Carabta oo asbuucan ka dhacay magaalada Qaahire ee dalka Masar ayaa xoogga lagu saaray dagaalka ay Soomaaliya rabto inay ku soo afjarto kooxda Al-Shabaab iyo sidii garab waxa loo siin lahaa hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya. sanado badan waxaa la tuhunsanaa in sirdoonka dalalka Carabtu aanay daacad ka ahayn in Soomaaliya ka adkaato kooxda Al-Shabaab. 10 sano ka badan oo Soomaaliya la dirirayso kooxdan argagixisada ah, gacan Carbeed oo kooxda lagu dabarjari karo lama arag. inaysan Soomaaliya dalban iyo inay Carabtu cagajiidaysay muddadaasi fog lama yaqaano, laakiin hadda waxaa la soo wariyay inuu jiro isbeddel cusub. iyadoo Soomaaliya ay hadda dagaal rasmi ah la aaday Al-Shabaab ayaa dhinaca kale waxa isbeddel ku socda hab fikirka iyo gacanta laga helayo dalalka gobolka iyo kuwa Carabta ay leeyihiin falanqayaashu, taasoo xoojinaysa rajada laga qabo in laga adkaado Al-Shabaab. 19 bishan magaalada Qaahire ee dalka Masar waxaa ka dhacay shirka madaxda sirdoonka ee dalalka Carabta. Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka qayb gashay shirkan. taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka qayb galay shirka. inkastoo aan la helin tafaasiil dhammaystiran, haddana ila sirdoon oo Soomaali ah ayaa ku warramay in mawduuca ugu weyn ee shirkaas inuu ahaa sida dalalka Carabtu u garab istaagi lahaayeen Soomaaliya oo muddo kadib soo bandhigtay sida ay uga go'an tahay inay ciribtirto kooxda Al-Shabaab. xubnaha xogtan soo dusiyey waxay sheegayaan in shirka Qaahire lagu go'aamiyey in Soomaaliya lagu beeriyo farsamooyin cusub oo lagu wiiqi karo kooxda Al-Shabaab, heshiis la xiriira xoog isdhaafsi, tababar wadaag ah iyo helista qalab casri ah oo Soomaaliya u sahli kara inay fashiliso dabinka argagixisada. in markii ugu horreysay Soomaaliya loo oggolaaday shirkan ayaa khubarada amnigu waxay ku micnaayeen kalsooni, fursad cusub iyo helista hal-abuur ka duwan kii muddada fog lagu wajahayay kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalama Soomaaliya. hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya oo iyadu ku shaqo leh jihaynta aragtida lagula dagaalamayo kooxaha argagixisada ah ayaa 5 sano la soo dhaafo lumisay wada shaqaynta dalalka gobolka iyo kuwa Carabta, taasoo sababtay inay hay'addu heli weyso wada shaqayn caalami ah iyo inay jihayn weyso aragtida dagaalka argagixisada, waxayna ugu dambayn noqotay hay'ad ka shaqaysa arrimo siyaasadeed, gaar ahaan hay'ad qorshaysa in mucaaradka awood ciidan lagu wajaho ama qarash lagu bixiyo aflagaadaynta siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo qoysaskooda. dagaalka ay gashay Soomaaliya dhowaan ee ku wajahan Al-Shabaab wuxuu u muuqdaa inuu durbe helay taageero caalami ah, waxaase u baahan inaan laga hordhicin sida uu nidaamka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uga faa'iidaysan doono fursadahan xawliga ku socda ee muuqda xilligan. maxay kula taadiga